anigoo fiirnaya si gaar weegaya ay horena u sheegin ay muhiim ii tahay in la dhegaysto macnaha aan dhegaysto khudbadeedaan ku sheegay wiigga hore oon dhahay waxaan dhegaysanayaa ama waxaan taxgelinayaa dhallinyarada iyo haweenka waxaan maanta tanaasulayaa inaan doorashada wareegga labaad sii galo anigoo tanaasulaya halka dumar oo macnaha wareeg lagu gasho waxaan si gaar ah dadku wacyigelinaya xildhibaanin sharafta leh in ay u heliyaan haweenka oo ay ka dhigaan gender balance guddiga waxaa loo baahan yahay gender balance sidaas daraaddeed dadku intii codaysay lixdinka codaysiisay waxaan ka codsanayaa inaad sacdii salaad ku wareejisaan waa mahadsan